بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalyaal waa kelmadeennii labaad oo aan kaga hadli doono laylatul qadriga. waxaan kelmadii hore aan kaga hadalnay habeenka iyo fadliga uu leeyahay iyo qofkii istaaga habeenka isaga qiimaha leh ajarka uu helayo ayaan kaga soo hadalnay. waxaan kelmadatan kaga hadli doonaa xagee laga raadinayaa habeenka isaga ah, xaguus ugu rajo badan yahay yaa rabnaa inaan kaga hadalno. nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxa uu ahaa mid aad iyo aad ugu dadaala tobankaa dambe ee bisha aad ugu dadaali jiray, si uusan 20 hore uusan u dadaalin ayuu u dadaali jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam. sidaa darteeda marka nabiga waxaa la weydiiyey habeenka laylatul qadriga ayaa wax laga weydiiyey rasuulka ilaahayow habeenkan xagee uu rajada badan yahay. marka waxaa ku sugan axaadiis fara badan iyo aqwaal fara badan halkaa ku sugan oo dhammaantood ku tusinaya in muxuu ahaa 10 dambe ee bisha barakeysan ee ramadaanka inuu habeenka ku jiro, habeenada qaarna uu u sii rajo badan yahay. أحاديث النبي وحكمت عليه الصلاة والسلام ويري تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. النبي وحير واحد قصدان وأذكر هذا نيسان طبعا كالدنباء بشا بركيسان رمضان مركا هبينك وحاو كجرا طبعا كأول دنباء بشا بركيسان رمضان كجرا. أحاديث كلا يا نبي حدنا وحكوا لي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الودر من العشر الأواخر. عليه النبي عليه السلام واحد سوى كالوقة سدان أو أتكبادان هبينا طبعا كالدنباء سيجار هبينا وتر كأسلاف هبينا وتر كالرادي وليه النبي عليه الصلاة والسلام سيدا كوي لباتنكا سدحي لباتنكا 25 وها 20 iyo soo 27 iyo 9 iyo 20 yani habeenada witrka ah habeenadaas oo wali ugu sii rajada badan yahay uu leeyahay nabiga kaleey salaatu wasalaam. saxaabi lidii jiray Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu yaa wuxuu ku dhaaran jiray uu dhihi jiray wallahi ilaahay baan ku dhaartay wuxuu dhihi jiray habeenka nabiga uu noo sheegay in la istaago wuxuu dhihi jiray waa habeenka 27 saasuu ku dhaaran jiray saxaabiga isaga. alcumuum marka waxaan muxuu ahaa haddaan isku soo duubno waxaan ka fahmaynaa in muxuu ahaa habeenkan isaga uu ku jiro 10 ugu dambeeyay bisha barakeysan ee ramadaan, si gaar ah habeenada isdhaafka oo witirka ahna inuu ugu sii rajada badan yahay. axaadiistan ka fahmaynaa iyo aqwaasha asxaabta nabiga calayhi salaatu wasalaam. waxaa muhiim marka gabi ahaan inaynu dadaalno 10 dambe idil inaynu ku dadaalno. halkan waxaan rabnaa soo kale aan ka xusno waxaa jira habeenkan laylatul qadri wuxuu leeyahay calaamado ayuu leeyahay, astaamo u gaar ah iyo calaamado ayuu leeyahay. calaamadahaas oo qaarna habeenka la xiriira oo habeenka la socda iyo kuwa muxuu ahaa habeenka markuu idlaado kadib imanaya oo habeenka ka daba imanaya. calaamadahaasaan wax ka xusi doonaa. calaamada koowaad waxay tahay habeenkaas waa habeen iftiinkiisu uu yahay aad iyo aad u badan. ilaaska habeenka isaga iftiinka jira waa mid aad u xoog badan weeye, waa habeen aad u iftiimayo aad u nuurayo weeye habeenka isaga. waa calaamada lagu garto inay laylatul qadr ay tahay. calaamada labaad sidoo kale waa habeen muxuu ahaa habeen degan weeye habeenka isaga, waa habeen xasiloonidiisu iyo muxuu ahaa aad u degan yahay oo muxuu ahaa wax muxuu dhibaato ah ama muxuu ahaa aynan jirin, oo habeen degan weeye habeenka isaga. waa calaamada labaad. calaamada saddexaad ee lagu garan karo inuu laylatul qadri ay tahay waxa weeye waa habeenkaas waa habeen cibaadada qofka ay u dhadhamayso
يعني marka habeenka qof ruuxa ilaahay cibaadada u taagan cibaado oo caajis kuma noqonayso waxay noqonaysaa mid muxuu ahaa dhadhan leh ee qofka laftiis uu dareemayo ee uu ku raaxaysanayo ay noqonaysaa cibaadada saddexdaas calaamad waa calaamadaha waxay ka mid yihiin la xiriira habeenka isaga la xiriira waxa kale oo jirta calaamad imanaysa markuu habeenku uu dhamaado muxuu ahaa maalinta ilaad subaxdeedii calaamad imanaysa calaamada waxa weeye in muxuu ahaa habeenka markuu idlaado markay qoraxda ay soo baxayso waxay soo baxaysaa iyadoo aan wax shucaac ah iyo muxuu ahaa aan lahayn oo nadiif ayaa maalinta iyada soo baxaysaa taayadan muxuu ahaa waxaa lagu gartaa muxuu ahaa in habeenka isaga ilaahay uu ku waafajiyay marka calaamada kale maxay faa'iideynaysaa waxay ku faa'iideynaysaa ama qofka inuu qalbigiisu uu xasilo uu ogaado xalay inuu taagnaa isla markaana habeenka isaga calaamado uu watay cadceedda maanta ay soo baxaysan muxuu ahaa qoraxdiin ay tahay mid aan lahayn shucaac waxay taa sunaysaa inuu yacni qofkii uu cibaadaystay ilaahay uu waafajiyey marka calaamadahaasna waa uu leeyahay ugu dambeyntii sayida caaisha radiyallahu canha yaa nabiga waxay weydiisay rasuulka ilaahay habeenka isaga haddii aan waafaqo muxuu ahaa maxaan aqrinayaa maxaan ku ducaysanayaa nabigana ducada ayuu baray oo nabiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaad tidhaahdaa allaahumma innaka cafuwun kariimun tuxibu alcafwa facfu canii marka waa in qofka muslimka uu badiya ilaaha subxaana watacaala cafinta badan ee kariimka ah in muxuu ahaa cafis la weydiisto qofka waxaa rabaa inuu ducooyinka uu ku duceysto marka walaalayaal waxaa naftayda iyo tiinaba u dardaarmaya in muxuu ahaa habeenka isaga lagu dadaalo isla markaana muxuu ahaa naftaadana aad kaga faa'iidaysad ehelkaaga iyo qaraabadaada dadkaaga inaad toosiso oo gabi ahaanba khayrka ay wanaagga la wada raadiyo wajazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu